السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتين dhammaan asxaabtan hawada ku saaxiibnay fadlan haddaadan naga mid ahayn maantaba nagu soo biir aad baad u mahadsan tahay maanta waxaan idin wadaa filim kale cusub oo weliba kuuriyaan ah filimkan wuxuu ku saabsan yahay laduu oo weliba la dheelaayo laduugaasna weliba sharad ayaa la saaranaya boqorada iyo boqorkeeda waxayna ku shartamayaan laduuga iyo lacagta ninka ku guuleysta ayaa wuxuu qaadanayaa boqoradana nin kale ayaa tartan kula jira si uu ayada ugu guuleysto ninkaasna lacag fara badan ayaa lagaga cunaya boqorada si uu ayada u hantiyo ninkii boqorka ah waxaa ka go-an boqordiisa inuu gacanta ku soo dhigo wax walba ayuu u sameynaya lacagta ayuu keenaya markuu halkaas keeno kadib ninka ayaa halkan soo galay halkana lagu xirxiraya kadibna dhab ayuu soo qaadanaya dabka ayuu ninkaas si toos ah la soo aadaya boqoradii way qaylinaysaa markay qayliso kadib ninkii soo fiirinaysaa markaas waxay leedahay haddii aad guuleysato aniga nolosheeda ayaa tantinaysaa wax walba adiga kugu saabsanna aniga ayaa kula lahaanaya laakiin boqorka gabadhan sababtu u daba taagan yahay waxay tahay noloshayda ayadoo hantiila waaye wuxuu rabaa hantida inuu ka dhaxlo laakiin ugu nasiib wanaag meeshan game ayaa yimid diimka markuu imaadana ugu dambeyntii waxaa dhacda boqorka in laga guuleysto waxaana ku guuleysanaya ninka kale boqoradana sidii ayuu ninka kale ku calmanaya kadib boqorkii waa u xanaaqaya magaaladii kasoo tagaya magaalo kale ayuu imaanaya asigoo go-aan ka qaadanaya weliba naagtan in uu ka taqalus amaba u dilo boqorkii kale ayaa gabadhii marka dambe wuxuu go-aan ku gaaraya inuu boqorkii dib ugu celiyo ama uu ku wareejiyo weliba asagoo ka codsanaya amaba uu ka dalbanaya in mar kale sharad ay wada ciyaaraan si uu gabadhan mar labaad oo suurgal noqon karta inuu asigana ugu guuleysto si ninkan hore aga guuleysto kale boqorada waa ay soo baxaysaa markaas kadibna odayga ayada soo koriyay ayay u imaanaysaa marka u imaado markaas waxay ku leedahay waxaan rabaa mar labaad game kale inaan dheelo si aniga aan ugu guuleysto amaba nolosheeda dib aan ugu laabto sababta boqorada ninkan sharad ayaa isku keenay mooyaane ma aysan ayada doonin balse waxay ku qanacsaneed boqorkeeda in nolosheeda inta ka dhiman inay la noolaato laakiin si wanaag waxaa dhacday sharad mar meeshii baadan bis oo meeshay ka baxayaan boqorada waa kana mar kale waxay dalbanaysaa in mar labaad gamekii dib loo qabto waxayna soo aadaysaa dhankan ayadoo weliba boqorkeeda gacanta kasoo qabsanaysa dhankan ayaa imaanaysaa ninkii kale wuxuu leeyahay aniga gamekan ma aqbali karo ayadan waxay ka ogolaanaysaa in gamekan mar labaad dib loo soo nooleysiiyo gabadhii kadib way soo istaagaysaa waxay imaanaysaa halkan niman kale halkaas ugu imaanaya marka ugu imaado waxay leeyihin halkan maxaa fadhisaa wuxuu soo bixinayaa tusbaxaasoo ahaa midkii ayada markii horeba sharadkii oo labadooda ayaga ay ku wada galeen waxaana ku qoran jeegaas oo ah midkii uu ku guuleystay boqoradii lacagtii sidii uu ku hantiyey kadib boqorka waa usoo dhaqaaqaya asigoo murugo badan ka muuqato kadib ninkii ayuu u imaanayaa ninkiina waa lasoo bursanayaa sababtoo wuxuu diiday in mar labaad gamekii dib loo furo asigoo weliba ka qoomamanaya mar labaad ay kulmayeen hal meel cafeteria ayay fadhiisanayeen kadib waxay ku leedahay maxaad ku diidan tahay in dib loo codbeynaysiiyo gamekan si mar labaad aad ugu guuleysato soo macquul maa asaga inuu kaa guuleysto markaas ayuu wuxuu leeyahay ma suurtagal ma noqonayso ayadan waxay ku adkaysanaysaa boqorkeeda mar labaad inay hantiso waayo gabadhan waxay kasoo jeedaa South Korea wiilkan wuxuu kasoo jeedaa South Korea ninkan kale boqorka oo sharadka gadaal ku yimid ayaa wuxuu kasoo jeedaa asal ahaantiisa ba Philippine runtii gabadhan marar badan ayay isku dayday in ninkan ayada ay la hasaawdo ama waxyaabo badan ayada ay u samayso laakiin ayada xaqiiqada ayay ka tahay wax kastana way u baahan tahay oo asaga dhankiisa ah balse asaga khayaano ayuu wataa wuxuu rabaa gabadhan kaliya hantideeda inuu la wareego mustaqbal midna kama lahan si uu ayada hantideeda ula wareego ayuu marka horeba asiga ugu soo dhawaanaya gabadhan si uu hantiyo mar labaad laakiin boqorka markii laga guuleystay waa uu niyi jabay kadibna gabadhii ninkii ayaa la wareegay nolosheeda wax kastoo ayada ku saabsaneedna ninkaas ayaa qaatay kadibna ninkii boqorka ahaa niyi jab weyn ayaa la kulmay waxyaabo badan ayuu u sameeyey wax kasta maalin maalin kamid waxaa dhacday inuu halkan inuu yimaado kadibna gabadhii ayadoo halkaas timaaday midii asiga loo waday ayaa waxaa dhacday gabadhii si toos ah in ayada loo dilay kadibna ninkii boqorkii ahaa oo laga guuleysanaya ayaa dadkii soo adeejiyey gabadhiina meesha ayay ku dhaawacantay markaas kadibna isbitaal meesha mausan ka dhaweyn ninkii niman kale ayuu soo wada habeen ayay noqonaysaa gabadhiina markaas kadib halkaas ayay ku dhimanaysaa ninkii gabadhii marka hore ku guuleystan asiga murugo badan ayaa soo wajahaysa weliba asigoo ka qoomameenaya waxyaabaha maanta uu sameeyey inay ahaayeen waxyaabo aysan macquul noqon karin mararka qaar balse saasay tahay mararka qaar waxaad ogaataa sharadka in uu yahay riskigaasna mararka qaar qofka biniaadamka naftiisa hataa uu ku weyn karo daawadayaal waa salaamantihiin haddii aad ka hesheen waan soo badanayaa fiidiyoyaasha noocadan oo kale ah haddaadan naga mid ahayn nagu soo bir mahadsanidin